Salaamu Allaahi calaykum saaxiibayaal soo dhawaada dhammaantiin. Magacaygu waa Cabdi Xasan Dheere, waxaan ahay trader suuqan ku dhex jiray 5 sano u dambeysay. Aqoon ahaan waxaan bartay ganacsiga gaar ahaan accounting and finance, iminkana waxaan diyaariyaa investment qualifications oo ah sida assets-ka kala duwan loo maalgashado loona maamulo. Waxaan ku faraxsanahay inaan halkan ku duubayno course dhammaystiran oo aan doonayna inaan kula wadaago sida qof ku cusub suuqan runtii aragti dhammaystiran uga heli lahaa. Suuqa forex waa madal u baahan xog xirfad iyo aqoon qoto dheer. Koorsadan halkan ku duubaynana waa midaan uga gol leeyahay marka hore xog kaasi wax walba muhiim tahay in ogaado qof walba suuqan ku cusub. marka xigtana waxaan isla meel dhigi doonaa qawaaniin shuruuc iyo qodobo marka hore faham u baahan kadibna kaaga baahan tababar iyo joogtiin fadlan isku day inaad muuqaalada si degan u daawatid kadibna aad note iyo qoraallo ka samaystid si ay hadhow kaaga caawiso inaad tababar ku bilowdid sidoo kale waxaan isla arkaynaa qaybaha kala duwan ee koorsadeena ay ka kooban tahay full forex course of Somali qaybaha kala duwan ee koorsadeena ka kooban tahay iyo waxaad ka faa'iidi doontid koorsadeena full forex of Somali waxay ka kooban tahay 5 qaybood oo muhiim ah qofka traderka inuu ogaado full forex course of Somali waxay ka kooban tahay cudurka koowaad waxaan u bixinay faham forex bilowga forex basic concept فهم فوركس بلوغا فوركس بيسك كونسبت معناheedu cudurka waxaan ugu bixinay qofka haduusan base ahaan ama basic ahaan ama concept ahaan usan wax u fahamsanin way ku adkaanaysaa inuu casharada fahmo ama concept fiican uu la baxo casharkeena koowaad waa hordhac introduction course outline oo hataa casharka daawanaysid casharka labaad wuxuu ka koobnaan doonaa waa maxay forex online waa maxay forex online ay kaga jawaabi doono oo 5 su'aalood oo ay ugu horeyso forex traditional forex ka sidee ugu soo gaaray isbarbardhig labada forex iyo kan caadiga ah isbarbardhigayo iyo kan online ka ah iyo sida sarifku u dhaco iyo platforms kala duwan la adeegsado casharo fara badan ayaa halka kaga sheekeyn doonaa casharka saddexaad wuxuu ku saabsan yahay erbixinta forex terminology of forex casharka aan u bixinay saddexaadii forex waxaan ognahay inuu yahay cilmi qadiimi ah oo kumanaan sano naga horreeyay oo uusan ahayn wax hadda cusub marka wuxuu leeyahay erbixin u gaar ah sida caafimaadka iyo dhaqaaluhuba ay u leeyihiin erbixino u gaar ah iyo forex-kuna erbixin leeyahay marka erayo fara badan oo muhiim ah in qofku ogaado ayaad ku baran doontaa casharka afraad wuxuu ku saabsan yahay trading view diyaarso trading view setup trading view waa isha dadka financial traderska ah ama financial marketska ku jira dhammaan ay adeegsadaan oo isticmaalaan wax ka taxliiliyaan hadday crypto tahay hadday forex tahay hadday gold tahay dhammaan waxaa la isticmaalaa trading view marka waa isha wax laga taxliiliyo wax laga akhriyo okay casharka shanaada u dambeeya casharadana basic waxa ku qaadan doontaa qaab dhismeedka shumaca candle formationku waxa weeyaan qaabka candleku waa waxa suuqa xogta kaaga sida marka candlekaasi qaabka uu u dhismo ayaad ku fahmi doontaa ku baran doontaa marka shanta cashar aad soo qaadid casharkaas qaab dhismeedka shumaca candleku qaabka u furmo qaabka u xirmo boodigiisa haygiisa si u samaysan yahay candle high candle low candle maxay ah waxaas oo dhan oo isku tagay ayaa suuqa ka samaysan yahay suuqa dhan aad arkaysid waa candle isku gegeeyay way ama candle buy iyo candle sell isku tagi way ama waxa sameynayaan trend buy ama trend sell marka inta aad soo fahamtid waxaan cutubkeen afraad labaad ku qaadan doonaa taxliilinta farsamo ee suuqa technical analysis taxliilinta farsamo ee suuqu waa luqadda suuqa lagu akhriyo way technical analysis ama taxliilinta farsamo ee suuqa xogta candleska suuqa kaaga sida aqoonta iyo xirfadda lagu akhriyo ayaa technical analysis la yiraahdaa marka technical analysis waa koorsadana qaybta ugu muhiimsan ay muhiim ka tahay qofka traderka haddii uu qaybtan ka dhisnayn waxa kale wax ma tarayaan marka qaybta ugu muhiimsan waxa weeye casharada 7 cashar ay ka kooban yihiin koorsada qaybta labaad ee cutubka labaad casharka koowaad waxa weeye suuq jihaysan trend market waa maxay market structure-ka iyo qaab dhismeedka suuqa dhan uu dhisan yahay ayaad fahmaysaa oo suuqan khawaarizmiga iyo algorithmska dhan uu ku dhisan yahay waa trendy marka trendiga wuxuu u diyaarsan yahay qaab la isku balance garanayo buyerska iyo sellerska la isku balance garanayo qaab noocaas ay u dhisan garaysan yahay marka khawaarizmiga noocaas uu u dhismo ayaad fahmaysaa oo waxa loo yaqaan trendiga marka casharka koowaad aad fahamtid waxaad fahmaysaa saylada suuqa dhiman supply zone saylada suuqu waa boostejooyinka suuqu ka dhaqaaqo suuqu moveska dhaqaaqaya meesha ka dhaqaaqan ayaa dhiman supply zone la yiraahdaa marka waa concept qadiimi oo weyn oo aad u ballaaran oo inta badan institutional banks ku trade gareeyaan okay waxaan isla baahan doonaa casharkeena saddexaad ee technical analysis taxliilinta farsamo ee suuqa waxaad ku baran doontaa isleegta iyo beenguurka suuqa liquidity and manipulation waa smart money concept waa institutional banks sida u trade gareeyaan oo suuqa u manipulate gareeyaan si fiican tusaalayaal aad u fara badan ayaa halka ku qaadan doontaa oo aad conceptka ku fahmi doontaa qodobkan afraad ee uu ka kooban tahay istaraatiijiyadeenu waxaa la yidhahdaa isleegta doorka nasashada suuqa the role of counter trend break the role of counter break waxa weeye qofka markaa fursad qaadanaysa lama rabo inaad trendiga ka hortimaadid waa inaad trendiga iska eegtaa si fiican aad trendka qaadanaysa uga fiirsataa marka nasashada suuqa counter trendiga kaasoo horjeeda in laga istaajiyo ayaa ku baran doontaa casharka afarta qodob istaraatiijiyada markaan kusoo gudubno waxaan baran doonaa isku xidhka nidaamka law and order strategy waxaan ku baran doonaa qodobada isticmaalana isku xiran oo traders lagu fulinayo law and order strategy xagee ka timi maxay mataqaanaa maxay ku fadhidaa base ahaan xagee ka timi xagee kasoo jeeda mise istaraatiijiyada isku daray wey maxay istaraatiijiyada kale kaga duwan tahay maxaa base iyo secret u ah
dhammaan qawaaniinta qodobada aan soo sheegay oo dhan qawaaniin ayay ku salaysan yihiin qawaaniin waxaa la yidhaahdaa waxa aan suuqa 100 sano kadib ama 200 sano kadib haddii la yimaado aan isbedelayn oo sidoodii u dhacayo wey marka dhammaan qodobada aan soo sheegay waa qaanuun bay wada leeyihin marka waxaa baranaysa waa qawaaniin waaye qawaaniintaas ayaa suuqa ku xukminaysaa ku dhisaysaa ku diyaarinaysaa traderkana u gelinaya marka casharka lixaad higher time frame trade scenario 1 qodobadii isku xirnaa oo higher time frame 1 hour 15 minute lagaga trade garanayo ayaad ku fahmi doontaa casharka lixaad casharkeena toddobaad ee u dambeeya taxliilinteena technical analysis taxliilinteena farsamo waa lower time frame trade scenario 1 2 3 4 2 3 4 يعني waa sida lower time frame ka adoo systemkeena isticmaalina qodobadiisii lower time frame ka 15 minute 5 minutes ee loogaga shaqaysto ayaad ku fahmi doontaa marka scenario magacyo inoo leeyahay waa xaaladda labaad saddexaad afraad marka ayaad ku fahmi doontaa dhiib tusaalayaal aad u fara badan ayaan ku bixin doonaa cutubka afraad cutubka saddexaad waa maamulidda khatarta maaliyadeed risk management maamulidda khasaarada iyo faa'iidada profit and loss marka hal cutub oo aad u dheer oo hal saac soconaya ayuu ka kooban yahay waxaana ku sharaxaynaa maamulidda khasaarada maaliyadeed sida loo maamulo loo manage gareeyo suuqan khasaare maaliyadeed ayuu leeyahay waxaad ku baran doontaa casharkaas muuqaal aad u dheer waxaad ku baran doontaa sida qofku uu mataqaana MT4 oo platformka labaad aan isticmaalnaa sida uu samaysan karo sida SLTB ugu xiran karo lodska kala duwan ee la isticmaalo standard lodadka noocyada kala yihiin akoomada iyo lodadka loogu kala talagalay akoon walba iyo lodku gaar u leeyahay iyo lodka iyo lacag ahaan dollar ahaan wuxuu u dhigmo waxaad ku fahmi doontaa waxyaabo aad u fara badan oo ay ka mid tahay sida akoonada demo account marka baradka soo qaaday demo account sida loo furto loo koriyo oo risk management iyo nidaam akoonkaaga loogu koriyo looguna ilaaliyo waxaad baran doontaa sida akoon real account ah demo account yani real account sida risk management loogu dejiyo looguna ilaashado akoonkaaga profitska aad samaysid suuqana mataqaanaaye faa'iido loogaga sameeyo akoonka saddexaad waxaad baran doontaa risk management waa akoon la yidhahdo challenge account akoonada shirkadaha laga qaato ah qaabka risk management aad ugu ilaashan kartid uguna mataqaanaaye ugu korin kartid marka waxyaabo aad u fara badan ayaan kaga hadlaynaa muuqaal aad u dheer hal saac soconaya waaye casharadaas ayaa ka faa'iidi doontaa cutubka afraad wuxuu ka kooban yahay maskax diyaarinta ganacsadaha mindset and psychology of trading mindset and psychology of trading ama maskax diyaarinta ganacsaduhu cutubkaan u bixinaa cutubada ugu muhiimsan ayuu ka mid yahay oo waxaan isla dhignay hal cashar isaguna wuxuu ka kooban yahay dheer oo hal saac soconaya oo qorshe maskax diyaarin iyo dhisidda caado fiican build strong mindset qofku meesha uu decisionska go'aanka ka gaarayo waxa weeyaan maskaxda marka meesha la diyaarinayo la rabo qofka in maskaxdiisu ay diyaarsan tahay waa maskaxda meesha uu decisions ka gaarayo marka maskaxda ayaa la diyaarinaya trainingkuna waa meel qofku kula kulmi karo fear cabsi ama greedy labadaa dareen ayaa psychology ama mindsetka qofka xumeeya oo ku rida go'aamo khaldan inuu qaato ama khaladaad fara badan uu sameeyo marka waxaa la baranaynaa inagu ku fahmaynaa qorshe isku xiran oo edge dhammaystiran ama qofku ilaa iyo routine ilaa iyo risk management ilaa iyo strategy ilaa iyo journal isku xiran oo subax walba iyo habeen walba rabo qofku inuu isku ilaaliyo qoro noloshiisana ku ilaaliyo tradingkiisana ku ilaaliyo marka qorshe aad u ballaaran ayaa halkaa ku fahmi doontaa cutubkeena u dambeeya taxliilinta dhaqaale ee suuqa fundamental analysis ama taxliilinta dhaqaale ee suuqu wararka suuqa dhaqaajiya news and fundamental analysis inaga news traders ma nihin oo trade news dartiis tradeka ugama baxan ugumana galno laakiin newsku waxay naga saacidaa biaska oo inta badan marka aad lacag buy ula jirtid oo leeyahay lacagtan buy baan u raacayaa weekska soo socda newska haddii uu xog u fiican kuu soo baxo xogtaadii biaskaaga ayuu sii saacidaya laakiin newska inagu hadda waxaan ku ogaan doonaa inaan biaskeena kusii saxano oo kusii hagaajisano laakiin news tradena inama geliyo nagamana saaro oo news traders ma nihin technical traders ayaa nahay yani ma nihin fundamental traders marka waxaad ku baran doontaa muuqaal aad u dheer hal saac iyo wax ka badan soconaya isagana waxaad ku baran doontaa waa maxay doorka bangiga uu leeyahay NFP waa maxay NFP waa maxay GDP waa maxay interest rate waa maxay inflation waxyaabaha kala duwan iyo wararka noocaas iyo mid walba nuxurka uu ku fadhiyo iyo lacagta qiimaheeda sida uu saameynayo iyo sida loogu dabaqo lacagaha qaybaha kala duwan ee mataqaan lacagta qiimaheeda inuu kor u kaco inuu hoos u dhaco marka saaxiibayaal koorsadan intaas ayaa ka kooban tahay aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan rajeynayaa inaad koorsadan wax badan ka faa'iidi doontaan noloshiina aad bedeli doontaan anigana waxaa macna ii sameynaya researchka inta badan aan usoo geliyey waqti badan aan koorsadan u geliyey in qof dhalinyara walaal Soomaaliyeed ay shaqo abuur iyo cash flow u noqoto oo noloshiisa ka dibirto ugu dambeynna uu ka sameeyo generational wealth ama inuu noloshiisii meel ay ku tiirsan tahay noloshiisa kala soo baxo aad iyo aad baad mahadsantihiin sayar fahad gelinaysa aad baan idin salaamaya allah idin jannayo allah idin guuliyo guuliyo gabadha baan idin rajeynayaa salaamullah